dhismaha ee Minaro Homes waxa shaqadeeda ay bilowday sanadkii 2019 waxaana waqtigaasi bilaabay ilaa imikana hawsheeda wada qaar kamid ah culimada ugu magac weyn ee Soomaalida. mashruucii ugu horeeyay dhismaha ee ay sameeyeen waxa uu ahaa mid ay ka fuliyeen xaafadda South Sea, dhismahaasi oo loo yaqaano Minara Towers oo imika dadku ay degan yihiin. sharikadda Minaro Homes waxa ay imika wadaan 4 dhisme oo kale, waxaana ka mid ah dhismaha ku yaala Parklands ee loo yaqaano Forest Garden, waxaana dhismahaasi imika uu marayaa dabaqa 5. dhismaha kale ee Minara Heights oo ku yaala xaafadda Westlands waxa uu imika marayaa dabaqyada hoose, waxaana imika aasaaska loo dhigayaa dhismaha loo yaqaano The Fig ee ku yaala xaafadda Kaleleshwa. waxa kale oo hawshooda ay socotaa guryaha filooyinka ee ku yaala Syokimau ee loo yaqaano Syokimau. waxa kale oo sharikadda Minaro Homes ay soo wadaa dhismayaal kale oo laga bilaabayo xaafadaha Eastleigh, Hurlingham iyo South Sea. haddaba waxaanu idin tusi doonaa qaar ka mid ah dhismayaasha imika socda ee ay wado sharikadda Minaro Homes. haddii sababtay doontaba ha noqotay aad doonayso inaanad ka fogaanin xaafadda Soomaalida ee caanka ku yidhi magaalada Nairobi ee Eastleigh, oo isla markaana aanad doonaynin inaad dhex degto, halkii kugu habbooneed waa halkan. waxay ka mid tahay Parklands. yahay odayaasha sharikadda Minaro Homes, waxaanu madax ka yahay qaybta iibka. sheekh, halkani dhinac waa ka Parklands, Eastleigh kama foga. tilmaan naga sii bal hadda meeshan waa sa arkaysid waxa way xaafadda Parkland. Soomaalida markii la fiiriyay waxay ka dhamaalayay Eastleigh agteeda. waxay leeyihiin war waxaan u baahanahay Eastleigh inaan joogno. Eastleigh buuqeedii cariirigeedii inaan ku dhex jiro. soo kambanigii markuu wuxuu arkay xaafaddan Parkland oo hadda aan gurigan ka dhisay. gurigan magaciisu waa Forest Garden. wadadan waxa la Olala Road, wadada ka dambeysana waxa la Forest Road. gurigan waxaan ugu talagalnay in dadka walaalaha qurbaha jiro absalaam inay ka faa'iideystaan, maadaama dadkii ay naceen Eastleigh buuqeedii iyo cariirigeedii zaxmadeeda inay helaan xaafad degan, habeesan, qabow, buuq yar, haddana oo quality fiican oo Eastleigh kulaalaysa. Eastleigh haddii u baahan waa 5 daqiiqo, toonka haddii u baahan waa 7 daqiiqo. Eastleigh Parkland dhexda ugu jiraan oo aqaqaan iyo maartay Parkland waxay ugu baahan yihiin moolalka. sheekh Liibaan Soomaalidu saan ka war hayno sanadihii tagay aad iyo aad bay u soo degeen xaafaddan Parklands. sababtay ku doortaan ma waxa weeye inay Eastleigh saaran tahay? sababaha waxaa jira absalaan waxay ku doortaa horta Parkland waxay ka mid tahay xaafadaha Nairobi u fiican. waaga hore hindida u badnaa jira, laakiin waayadan dambe Soomaalida u soo badnaatay. waxay ku jeclaadeen marka Soomaalida maadaama Eastleigh saxmad iyo meel ganacsi noqotay. Eastleigh hadda sanadahan soo socda noqon doonto meel ganacsi ee noqon doon meel degaan, inay helaan dadkii meel Eastleigh aan ka fogeen haddana yara degan oo quruxsan. sadartii markaas waxay ku doortay inay Parkland degaan. gartay gudaha ma eegi karayna hadda. gudaha waa fiiri karnaa. dhismo imika halku maraya hadda dhismaha dabaq 3 hadda tiirarkiisa la taagay. absalaan waxa soo wadnaa haddii showroom-ka la sameeyo in lacagta 20% ilaa 30% la kordhi doono. hadda marka waxaa jira waxa la special offer baa dhimis in walaalaha ka faa'iideystaan. mise dabaq ka koobnaan doona. gurigan absalaan wuxuu ka kooban yahay waa 14 dabaq iyo underground iyo 2 basement. basementyada waxaa loogu talagalay qof kasta oo guriga degan inuu helo 2 parking asagu leeyahay iyo parking martida leedahay. sida kale guriga waa 14 dabaq. 14 dabaq. marka muxuu ka koobnaan doonaa? guriyuhu noocyadee noqonayaan? guryaha absalaan horta waa 2 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi, 4 qol iyo fadhi, 5 qol iyo fadhi iyo 4 qol iyo fadhi oo duplicate iskorsaar ah. waxa weeye 4 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi iyo 2 qol iyo fadhi iyo 5 qol iyo fadhi. 5 qol waa jira. 5 qol wuu leeyahay gurigan. waxyaalaha ugu fiican guryaha kale waxa waaye 5 qol iyo fadhi qolka shaqaale ayuu leeyahay. sidaas oo kale wuxuu leeyahay duplicate iskorsaar
afar qol waa yani filadii dabaqa la dhex geliyay afar qol iyo fadhi ismaha quality design-kii modelka gurigana insaan u sheegnay u helaan maadaama company Turkiya dhisayaan full contract waxa uu siinay company Turkiya asaga dhisay xagga design-ka iyo modelka iyo quality-ga iyo material-ka inta badan waxay ka yimaadaan Turkiya company-ga naqshadeena oo dhisay waa Turkiya system-ka loo dhisay waa international system gartay de marka kan goorma ku rajo weyntiin in ku dhamaado kan ay sanad iyo xoogay adii hadda waxaan rajaynayaa sanadka soo socda December inuu diyaar noqdo sanadka 2023 bisha December inuu diyaar noqdo wala galiya basement iyo underground iyo dabaq saddexaad hadda socdo waa dareemaysa Cabdisalaam Sheekh Liibano kirada markay noqoto qofka ama dadka laga yaabo inaanay doonayn inay soo degaan gurigan ee raba inay kireeyaan soo kan imika joogno maxaa lagu kireeyaa dad badan jiro walaalo oo aan guryaha naga gato oo gatay investment yani maal gashi kirada hadii la fiiriyo Parkland way ka fiican tahay isliin Parkland saddexda qol oo caadiga aan masaajid lahayn madaaris lahayn waxa la kiriyaa lacag 100,000 lacag $900 ilaa $1,000 maadaama gurigan oo guri ka fiican yahay xagga dhismaha iyo quality-ga design-ka haddana agabkii oo dhan wato sida masaajidkii iyo madaaristii jimamkii swimming poolkii supermarketkii cafeteria-dii iyo maqaayadda xagga management-igan oo ka fiican yahay waxaa laga yaabaa kun iyo xogaa in la duko karo masaajid weyn oo jaamica waraan 300 iyo ka badan qof ku duko karaan waxaan u sameynaynaa jimam oo laba ragii dumarka maadaama kamid dad culimo maamulaan isdhexgelin dumarkii ragii jimkii wiilasha jimkii gabdhaha swimming poolkii wiilasha swimming poolkii gabdhaha supermarketka qofku ka adeeganay cafeteria meesha qaxwada pharmacy in case hadii wax loo baahdo emergency meesha caruurta ay ku dheelayeen iyo waxbarashada diiniga oo madrasad 6 qola 3 taxfiidka quraanka 3 cilmiga ma sha Allah asiider xagga security guard wuxuu leeyahay security uniform auto special wuxuu leeyahay CC camera wuxuu leeyahay security light wuxuu leeyahay imisa dhismo ka koobnaanaya imisa aqal aan ilaahay adii total guriyaha waa iska 90 guri ilaa 95 guri ilaa imika imisa guri baa leeyahay ka qaatay hadda gurigan waxaa la iibiyay 70% ilaa 60% marka inta dhammayd waa la iibsaday inkastoo dadka isku kala dooranayaan kor iyo hoos soo qofka waxa laga yaabaa guri u baahan meeshuu ka codsado hadduu ka waa meel ku dhagan oo ka helo inta badan ma dabaqyadan hoose dadku jecel yihiin mise kuwa sare dadka horta Cabdilaan qurbaha ka yimaad korayba jecel yihiin hoos lugta ku badan waa zaxmado sheeko kor noo habeeya soo waxay rabaan inay toonka iyo islii kor magaalada dusha ka soo daawadaan soo inta badan guriga kor laga gataa dhexdana way gataan dadka waa yeeladii caruurta wadana hoos ay qaataan soo dadka badan waxay ku xiran tahay qof walba iyo doorashadiisa exactly Sheekh Liibaan aad iyo aad baad mahadsantahay dhismayaasha kale soo socda ee imika gacanta ay ku hayaan Minara Homes waxa kamid ah dhismahan imika aanu ag taaganahay xaggayga dambe waxa idinka muuqata kaynta caanka ee Karura Forest loo yaqaano ee ku taala magaalada Nairobi hadda waxa ila jooga Sheekh Cabdiraqiib Ahmed oo isagu madax ka Minara Homes Sheekh aad baan horta ku salaamaya ma sha Allah gurigan halka laga galaya halkan ay noqonaysaa miyaa saad ii sheegtay meeshan sidaan ku sheegay waxay noqon doontaa insha Allah taala waa interigi wadadan highwayga markuu ka soo laxda gaarigu intaanu ka gali doonaa meeshan hadii la yiraahdo albaabka laga furi doonaa markuu dhismuhu dhamaado hadii la yiraahdo gartay dhismaha imika halka laga binaynayo oo soo eegi doonaa laakiin xaafadan dhismahani ku yaalo maxaa la yiraahdaa iyada xaafadan waxaa la yiraahdaa Westland oo dhanka Parkland soo xigta sida ii muuqato xaafadan saxmad badan lahayn oo aad iyo aad u degan
xaafadan haddaad tilmaan ka bixiso nairobi xaggee kaga taallaa meelahay caanee u dhow maasha allah cabdisalaan oo aad baad u mahadsan tahay runtii waana su-aalo muhiima xaafaddu horta inay degan tahay oo qaylo hadda ka jirin kaameradan duubayni iyo siday hadda taallo iyo inaan wax dhawaaqa jirin oo inaan qaylo maqlaynin idinka hadda waad ila maqlaysaan waa midda labaad ee xaafadaha nairobi ugu qaalisan bay ku taallaayo meeshan hadda wax 500 mitir ayaan u jiraa Westgate Mall waxaa kaloo u dhownahay Sarik Center Mall waxaa kaloo u dhownahay Karura Forest oo dadkan habeen maalintii socdo oo dhan meeshana aroortii loo soo orataga in kaynta meel lagu jimcay dhismaha halkan imika laga bilaabayo ama ka socdaba magaciisu muxuu noqon doonaa projectigan runtii projectiyo badan baan ka wadnaa magaalada Nairobi waa projectiga ugu weyn aan wadno waxa la yiraahdaa magaciisa Minara Heights gartay marka xagga qiimaha area-da imika aynu joogno aad eegto guryaha ilaa misa ku gadaysaan haddii aan la yiraahdo runtii annaga markii naloo fiiriyo gurigan hadda nagu dhow gurigan hadda nin hindi ah ayaa dhisaya kan hadda noo dhow way 4 qol iyo fadhiga 500 kun buu gadayaa 500 oo kun oo dollar buu gadayaa hay meesha isagu 500 ka gadayo annagu waxaan gadaynaa isla 4 qol iyo qolkii shaqaalaha 230 kun baan gadaynaa annaga laakiin boqolkiiba 30 aan ka qaadaynaa 4 sano ku yar baan leenahay wixii hadaad 2 kun 3 kun waxaad soo heshay iska keen ribana ma saarayno diiciyaadan billaah ilaahay baan ka magan galay waa tahay marka waxaad leedahay payment planka ama farsamada lacagta lagu bixinayaada waa midaan dadkii dhibayn muddo 4 sano ah guriga hadda shaqadiisu waa bilow way socotaa ilaa 2 sano iyo badhan ku dhamaynayna 2 sano kalena adoo gurigaagii degan baad lacagtii muxuu ahaayay qiimaha 4 qol waad ii sheegtay 3 qol 2 qol qofkii doonaya kuwaasina imisa noqonayaan cabdisalaan horta su'aal muhiim ah weeye guriga 2 qol wuu leeyahay 2 qol iyo fadhi iyo qolka shaqaaluhu wataa waa tahay cabirkoodu 120 square meter bay ku fadhiya way wuxuu kaloo gurigu leeyahay 2 qol buu ka koobmaa iyo qolka shaqaalaha 3 qol iyo fadhi iyo qolka shaqaaluhu ka koobmaa 4 qol iyo fadhi qolka shaqaaluhu ka koobmaa 4 qol baa 2 nooc mid duplex oo iskorsaar jira waa nooc hadda casri ah oo Turkida design meelahan ay ka keeneen weeye waa apartment laakiin waa iskorsaar oo kor iyo hoos markaa 4 qol iyo qolka shaqaalaha way 4 qol baa 3 nooc weeye waa 200 midna waa 230 qiimihiisu midna waa 170 maxay ku kala duwan yihiin markaa sheekh 4 qol 3 nooc ay ku kala duwan yihiin horta cabirkay kala weyn yihiin nooca ugu weyn waa 230 duplex baa la dhahaa 286 square meter waay nooca ku xiga waa duplex isagana 250 square meter waay 200 kun oo dollar baan gadnaa nooca ku xiga waa nooca hadda Soomaalidu ay aad u qaadato waa tahay waa 4 qol aan garanayna flatka apartment hay iyo qolkii shaqaalaha isna masquul wata kaas waxaan gadaynaa 175 qofkii wuxuu iska bixin boqolkiiba 30 inta kalena muddada 4 sano ah haweenku waad iska garan Mareykanka jira ayuutay ku dhigeen way 5 qol iyagu maxay noqonayaan 5 qol maanan ku badinin guriga dhanba waxa ku jirta 2 xabo mid kor ah iyo mid hoos ah laakiin labadaas iyaguna waa la qaatay 4 qol waa weyn ba 5 qol u dhiganta waa 4 qol iyo kii shaqaalaha isna masquul wata kaasa hadda 5 qol ahaan u isticmaalnaa way 3 qol maxay noqonayaan 3 qol qol shaqaalay wataano masquul wata isaguna familiyada dhaxdhaxaadka ah ayaa loogu talagalay Soomaalida hore waagi hore iska xoolo dhaqatada haysa hadda sheegtay way ballaadnaan jireen laakiin dadkan hadda ka imaanaya qurbuhu afaray iyo saddexlay wataan waa ku filayay markaa waa ku filayay way 3 qol maxay noqonayaan qiimahoodu waa 155 kun laakiin xaafadan waxaa la gadaa meeshaan aniga aan ka gadayo 155 kun xaafadan waxaa la gadaa 200 kun qiimaha caadiga 20 milyan baa la gadaa oo lacagta wadankana way labadii qol baa yimi labadii qol shaqaale iyaguna wataan cabirkooda 120 square meter wati qofkii degi kara familigiisu la egyahay asaga gata dadka inta badan investment bay u gataano intay gogolaan yay waxay ku kireeyaan aroos ahaan bay ku kireeyaan habeenkii waxa lagu kireeyaa $200-300 halkii habeen
intay iyagu gogoladaan sidaa sheekhu inoo sharaxayey labada dhisme halkan laga taagi doono haddii aan la yidhaahdo oo ilaa 200 oo guri ay ka soo baxayaan dee aaggiina wuu inoo sharxay waa magaalada bartankeedii waa xaafadaha ugu wanaagsan ee magaalada Nairobi haddii aad kan danaynayso Minara Homes baad la soo xidhiidhaysa haddii haddaba aad soo aragteen guryihii kala duwanaa ee bartamaha magaalada Nairobi ay ka dhisayeen sharikadda Minara Homes imika waxaanu u soo baxnay duleedka magaalada Nairobi waxa weeye gobolka loo yaqaano Machakos airportkii Nairobi waxba nooma jiro oo haddun baanu soo dhaafnay injineer Cabdullaahi Gaarane waxa uu ka mid yahay madaxda sharikadda Minara Homes injineer fooqyada dhaadheeraa waynu soo aragnay dabaqyada ahaa ee guryaha laga dhisayey oo xaafado kala duwan oo Nairobi aynu soo maray oo dabcan Minara Homes ay dhisayso imika waa filooyinkii halkan miya waxaan soo aragnay almost 3 project oo guryo dheeraa Nairobi dhexda ka dhisaynay hadda waxaan nimid guryo villas Somali dhisaysa Minara Homes projecta aan wadna ka mid tahay wuxuuna ku yaalaa Machakos County waxaa la dhahaa Brightline Minara Homes anaga gacanta ku haysta dhismadiisii waa villas ka kooban ilaa 800 unit 800 oo filo 145 units way Minara Homes anaga gacanta ku haysta dhismadiisii marka show house-kii hadda ka mid kan oo dhamaaday waa laba qaybood dhulka waa 43 by 80 iyo 50 by 100 labadii waan dhisnay 43 by 80 waan dhisnay 50 by 100 waan dhisnay sigo marka client-kii kala duwan guryaha ay qaadan karaan kala doortaan ilaa imisa guri baa imika dhisan imikan waxaan 40 guriba hadda noo dhisan qayb socota iyo qayb dhamaatay وكا تلتلا هلك او يلان ماشا انجينير عبد الله ده marka ma isla halkan waa miyi magaalo this waxaan dhihi karaa this is city within a city waa magaalo ku dhaxaysa masaajidka waa halkaas halka waa isbitaalkii isbitaal la waa leeyahay guryaha waa yeelanaya uu leeyahay waxaa jira shopping center oo idil qayb kasta idil waa shopping center buuxa then there is also kindergarten school by masha Allah laga dhisayo islaamic marka waa city within a city qofkii halkan soo daga inaad magaalada iska aado oo shaqada waxa kala maqantay Nairobi marka halkan laga dhaqaaqo Nairobi intee inoo jirtaa bartamaheed with the expressway qadaad samaasho 10 to 15 minutes toban daqiiqo ilaa 15 waa jidkan xawaaraha dheereeye loo gol yahay airportka ka taga ilaa hadda ka isticmaasho waa 10 ilaa 15 daqiiqo gartay marka qayba u sameynaysan baan u malaynayaa ismayaasha halkan qaybta hore imise guri bay ka koobnaanaysaa hadda waxaan ku jirnaa phase 1 oo aan dhisayno phase 1 soo far hadda waxaan ka dhisnay 20 iyo 1 guri hadda marayna phase 2 weli uma gudbin phase 1 markaan dhamayno hor uga badatan inaan phase 2 galno marka phase baan wadnaa from phase 1 to phase 5 gartay marka shan qaybood oo kala duwan laakiin hadda phase 1 baan ku xajirnaa ilaa gartay guriyihii hore kuwan waxay kaga duwan yihiin dee laba guri baa diyaar asaad sheegtay oo weliba goglan oo aynu arki karaynaa soo ma kanoo kale marka dibadda laga eego dee waa guri weyn intee lagba ku fadhiyaa kan hadda waa 43 by 80 waa qaybtii yareed gurigan wuxuu ka kooban yahay 5 qol iyo qolka shaqaalaha waa 6 waatay 5 qol qolkii fadhiga ku jira qadada baa ku jirta jikada baa ku jirta markaad soo gasho guryahan
waxaad arkaysaa in dhowr gaari ay geli karayaan halkan ilaa imse gaari bay qaadayaan halkan waxaad gelin kartaa 3 bakin way and you have a small garden yar baad ku leedahay meesha lagu nasan karo entering waa halkan absaan gurigan waxaan u dhisnay si maartay macaamiisheena Soomaalida og tahay Soomaalida ma jecla gabdhaha dhaxmaran halkan fadhiga so for privacy purpose halkan ma dhisnay guriga gabdhaha halkan baa laga soo gali karaa so to entry uu leeyahay halkan dadkii waa ka gali karaa caadiga oo wada sit roomkii ugu soo socdo haddii marti badan ku joogtana halkan baa laga galaayo dib baa laga soo fuulaya guriga sabti xagga kale la marki karayna so aan galayno so halkan waa fadhiga waa tahay iyo cuntadii isku furan iyo qadada halkaas isku furan dining halkan waa fadhigi jikada gurigan wuxuu guriga kaga duwan yahay darishada waa weyn tahay zaid okay for light purpose sifa cabru maanin waxa kale oo jirta gurigan Turkiga waa dhistay waxaan isticmaalnaa Turkish style alaabtan waxa dhammo wax laga keenay qalabka marka guriga galay waa Turkiga imaada marka next waxaan aadaynaa jikadii halkan kitchadii iyo waxay soo furan halkay cuntada qofka cuntada marka cuntada halkaas laga soo dhiibaya halka laga soo dhiibaya dadka martida fadhiga maada lagu talagalay purpose so halkan waa jikadii guri custom dhisna waxaan la keenaa fully fitting kitchen oo isagana Turkiga laga keenay waa textile wax meeshan everything Turkiga laga keenay qalabaynta gurigan marka jikadana waa tan with the oven halkan ovenkii baa yaala waa kan talaagada ka gelaysa marka talaagada waxay gelaysaa male halkan talaagada halkan right so halkan waa storeki meesha cunadii raashinka la dhiganayay gurigan waa guest room guriga martida waa institute guriga masquushiis buu leeyahay qofka martida ku imaada halkan uu ku saxanaya masquushu aad bay weyn so masquul weyn buu leeyahay masha Allah so halkan guest room so ground floor hadda joognaa waa guest roomkii fadhigii jikadii iyo meesha qadada intaas hoosta ku taala carruurta waxaa loogu talagalay midkan u socodno kan waa institute kii labaad gurigan wuxuu ka kooban yahay 5 qol 5 qol waxay institute 3 oo master ku jira oo mid kasta masquushiisa gudaha ku leeyahay masquushiisa ku jirta iyo masquul cloakroom waa 5 qol iyo 4 masquul so qolkan waxa yiri xogo masquushi baan gudaha galinay so it's institute okay waa laakiin martida loogu talagalay waa iska qol extra mar kale haddii aan idiin sheego gurigani waa guriga loogu talagalay in dadka iibsanaya la tuso marka furniture kuna sidoo noqonayo muunad baa ka sii bixinaysan miya waa Turkish style dhismada macal qalabaynta so kulli sirta aan dhigna waa tan waa 5x6 dad waxay yiraahdeen 6x6 version qolku waa qol weyn ma sha Allah waxay halkan u yaala coffee table oo zeegi ma wada ku nasan karaan TV wada iska dhigin karaan halkan musayga iyo maamada inta aan garanaynin haddaba macneeyo afsoo xilligayga aad ka yar waa odayga islaanta waxaan jeclaan lahaa intaynaan kabadhada u gelin inaynu balkaniga eegno marka balkonigan iga iskale wax la leh ma leh master balkonigu ma istiri qol baa buu leeyahay qudhiis ka weyn ma sha Allah Abdullah halkan waa meeshii dharka close in walk محل walking closet so this is the wardrobe maamada odayga iyo maamada iskale halkan waxay haystaan in kale space kale oo banaan halkan waxa uu yeelay maartay muraayad baa u taashay oo marka halkan kala bistaan halkan isku eegaysa ma sha Allah halkan waa markan washroom kooda waa masquushoodii marka waa sawaay nafas leedahay ma sha Allah dabcan iyo de showerkiina waa leedahay Abdullah bihi imka ku jira guriga Soomaa bihi waa ku jira dabcan leedkii waa ku jira wax ka maqan
marka hadda la degi karaa kan anytime haddii haddaba aad ka soo daashay buuqa iyo saxmadda magaalooyinka waaweyn oo nairobina aanad doonaynin inaad taasoo kale ku noolaato meeshaadi waa halkan nairobi airportkii waxba uma jiro halkan waana sida injineer cabdilaahi uu sheegay magaalo ku dhex taalla waa city within a city qiimuhuna kuma eriyayo injineer cabdilaahi aad iyo aad baad umahadsanta kolba sidii wax loogu fududayn karo bulshadu inay deegaan heshana oo ay ka kaaftoonto bangiyada iyo ribada ka kaaftoontana iyadana oo loo baahan yahay oo kambaniyadu arrimaha ay sahlaan insha allahu tacaala sida hadda dadkii guryaha iibsadayba ay runtii ka mahad sheegteen sidoo kale dadka guryaha iibsaday hadda gurigan hadda aan joogno wax ka gatay iyagana waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay gurigooda u barakeeyo oo deegaankan mid barakaysan ilaahay uga dhigo qolyihii barnaamijka ka shaqeeyeyna mar kale u mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran runtii mar kale waxaan leeyahay xogaa kambaniyada soomaalida ee ganacsiga wada wax weynna waa la qabtay wax weynna waa laga filayaa waxaan maanta halkan u joognaa in aan daahfurno gurigan casriga ah ee sida wanaagsan loo dhisay oo ay soo dhiseen walaalahay milkiilayaasha Minara Homes oo aan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay inay ka soo jeedaan deegaanka laga soo doortay Wajeer South intooda badan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan bogaadin gaar ah u jeediyo Minara Homes kaliya ma Minara Homes hormuud bay u tahay shirkadaha dhismaha ee Soomaaliyeed oo dabcan la oran karayo wax weyn oo micno leh ay ku soo kordhiyeen dhismooyinka ku soo biiraya maalinba maalinta ka dambayso magaalada Nairobi ama guud ahaanba waddanka Kenya dhabtii anu real estate ka xogaa yar baan ka fahansanahay ma garanayo shirkado kale oo aan Soomaali lahayn oo ku dhiiran karaya facilitieska ama adeegyada ay shirkadaha guryaha dhisa ee Soomaalida ah ay u huraan macaamiishooda 4 sano lacag lagu bixinayo oo aan wax riba lahayn waa arinta koowaad ee aan ku bogaadinayo